kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha aynu jecel nahay meel walba waa joogtaan si waliba muuqaalkayga idiin soo gaaraya halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka Somali News Studio oo ku leeyahay magaalada Muqdisho waana xiliyadii aan idiin soo baahin jirnay warka caalamka waxa uu diyaar ah oo idiin soo jeedin doona hadii Allah awood leh waraali ka noqdo anigoo ah Ciidruus Maxamuud Iimaan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka haatan soo galay golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan arrinta mooshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalan jibinayeen in ka badan 300 oo arday ah kuwaas oo wax ka baratay jaamacadda Alfa. ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa munaasabad soo dhaweynaa waxa lagu sameeyay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. kulan ku aadan sidii bulshada ay kaga qayb qaadan lahaayeen dhismaha jaamacadda Maaqri sidoo kale wadada xiriirisa deegaanka Ceeldaahir iyo sidoo kale magaalada Ceerigaabo ayaa lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag. gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay golaha wakiilada ee Somaliland. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka caalamka ee telefishinka Somali News. daawadayaal iminkana u diyaar garooba qodobadii aan idiin dulmaray oo dhameystiran.